بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما ولا لي قالي من البادن دافيدا كجوتان واني سلامي سلام كدب waxaan rajeyna dhamaantiin ina farxad iyo caafimaad qabtaan inta xanuunsan Allah caafiyo inta caafimaad qabtaan Allah u siyaadiyo Ramadaan Kariim Ramadaan Mubaarak insha Allah taala asxaabteeda waxaan idin leeyahay dhamaantiin soo dhawaada insha Allah ilaahay inaga dhigo kuwa acmaasha laga aqbalo soonka iyo salaad dhamaan intay acmaalaha kuwa laga aqbalo Allah naga dhigo aamin ya rabbi asxaabteeda qaaliga mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idin leeyahay soo dhawaada haddii aad nagu cusub tahay soo dhawo subscribe inoo saar kambalelka furo si aad mar walba ula socotid muuqaalada aan soo dhigno haddii aad hor noola joogi jirtid waxaan ku leeyahay waa mahadsan tahay marti ma tihid insha Allah taala macaawin cashadeena meeshan kusoo diyaarsanay waxaa waay afur waa laga imaaday afurkan wax yar oo fudud ahay hadirtaan cashadeena soo diyaarsanay maasha Allah tabaarakallah ilaahay noo siyaadiyo inta aanan haysanna ilaahay ha siiyo asxaabteeda cashadeen markaa soo diyaarsanay alxamdulillah sidaan quruxda badan leh noogu soo baxday maasha Allah tabaarakallah cashadeeni waxyaabaha ay ka kooban tahay dhammaan qaabka aan kariyay waad ila arki doontiin daawasho wanaagsan muhiimadda waxaan ugu galleeyaa waxay tahay meeshaan waxaan ku haysanaa shurbad ama cadis qof walba sida u taqaano insha Allah taala dhowr nooc oo kala duwan loo sameeyaa hadirtaan qaabka aan u sameeyna waa ila arki doontiin shurbadda inaba caadi ma ahan Ramadaan waxyaabaha la cuno waxa ugu fiican ayadoo ay aniga aaminsanahay haddii aan ku afurin afurkaas ma ii jiraba insha Allah taala haddii aad baratiin oo ay ka soo ducey doontiin qof walba oo Soomaali waxaan idin leeyahay waxaan idin kula talinaa marka ugu horeey in aad shurbadaas isticmaashin halkan waxaan ku haystaa 3 xabo yaanyo caadi aan soo jarjaray 1 xabo basal iyo wax yar oo chicken ama dooro 1 xabo karooto aan soo hoolay dhowr nooc oo kala duwan laga sameeyo meeshaan waxaan ku haysanaa boorashkeena caadiga waa wax yar oo boorash aanan badnayn asxaabteeda dhowr nooc laga kala sameeyaa maxaa la dhahayay shurbada muuqaalka horeeyay waa soo sameeyay ayadoo aan ka sameynayo cadis ama misir qof walba sida u taqaano insha Allah taala waxaan leeyahay isku roonaadayaan la moogaanin ma fahanteen digsiga dabka soo saartay wax yar oo saliid aan ku soo shubay saliideen wax yar markay inoo soo kululaatay waxaan ku soo shubtay 1 xabo basal aheyd andeen asxaabteeda 1 iyo 2 wax yar waxaan shiilanaynaa basasheena shiilitaan saasana ma shiileena cabaar yar ee dabka noo saarnaanay adiga kabacdi markay wax yar noo soo gaduudatay oo wax yar ee noo shiilantay waxaan ku darsanaynaa waxyaabihii kale aan haysanay hadirtaan waxaan ku soo darsaday yaanyo waa 3 xabo oo yaanyo oo kaliya 1 xabo karooto aan soo hoolay chicken gadaala oo dara insha Allah step by step ila socod doontiin hadoo Ilaahay ka raali noqdo intaana is dhaxmarinaa cabaar isku soo shiilmay markii xoogaa yaanyada ay noo soo jabto haddana waxaan ku soo darsanaynaa wix kale aan ugu talagalnay qof walba sidoo rabo u sameeysan karaa ani hadirtaan sidaana u sameeysanaa dhowr adeeg hadba qaabkii markaas aad ka heshid aad u sameeysan kartaa hadirtaan waxaan ku soo daraa waa bocor cadde adiga hadaa rabtid bocor bis waa ka sameeysan kartaa insha Allah anoo bocor bis ka sameynayana waan soo gelinaa bocorada naftirkooda aad u macaan badan yihiin aad u fitamiin badan yihiin hadirtaan bocorada iyo waxa inoo raacsan waa wax yar oo beena oo boorashkeena caadiga boorashka gasacyada lagu keeno bocor cadda inuu noo soo bislaadaa rabaa waa soo biyeeyay 1 galaas oo biyo ku soo shubay 1 bakeeri oo biyo ku soo shubay biyihii waan la daboolay kabacdi wuu gursaday hadirtaan sida u jeedinba biyuhu wuu gursaday fiican ugu jeedina umaleena hadirtaan waxaan soo qaadanaa chickenkii haddana hadirtaan ku daraa asagana wax yar inuu ku shiilmaa rabaa kabacdina waa ila arki doontiin waxyaabaha kale aan sameeyo haduu Ilaahay yiraahdo asxaabteeda chickenka wax yar ku soo shiilanaynaa kadib daboolka u dhiibaynaa waa ka tagaynaa wax yar ha isku soo shiilmo insha Allah taala muuqaalkeena wuu dheeraa doonaa waxaan u maleynaa inaan dhamaantiis aan soo wada duubi karin insha Allah taala wixii aan ka gaaran soo duubaa hadda waxaan ku soo darsaday waa barbarooniga shiidan ama barbarooniga shiidan oo budada barbarooni hadalka mararka qaar luqo iska galaa ma fahanteen insha Allah waxaan kale ku soo darsanaa wax yar oo cusbe iyo wax yar oo adii xawaashi isku dardara adii wix space markaas jikadaada yaalo aku darsanay hadaa rabtidna waa ka dhaafi kartaa
hadda ani xawaash maan waxaan ku daraayo waxaa waaye bariis maceeye adiga waa maraq digaag oo maraq digaag caadiga aan ahayn oo midka shushubka ah waxaan kusoo daray hadartaan boorashkeeni ama mushaarideeni wax yaar oo been waayay insha Allah iyadana wax yaraan qaandada la dhex marmarinaynaa kadib maxay noo harahe qaabkuu noogu soo bislaa lahay biyo u dhiibeynaa ma fahanteen biyo u dhiibeynaa insha Allah daboolkiisaan siineynaa waa ka tageynaa saliid aan ku darana wax yaar oo been ahayd insha Allah asxaabtii saas ula socda hadartaan waxaan kusoo darsaday jab yar oo qajaar ah asxaabtii qajaarkii aan kusoo darsaday wuu noo soo gursaday hadartaan waxaan soo qaadanay makiinada gacanta ama mashiinka gacanta insha Allah tacaala waxaan rabnaa inuu smooth noo noqdo soo maahan waa shurbad la cabaayo ama mushaariba iska dheh bocorka iyo waxyaabaha taagtaagan dhanaa rabaa inaa jabiha laga raali noqdo nalkii ay ka damay mobaylka dab la-aan noqda aan wax ku duubaaye nalkiisa dooda marka madoobaadoo noqonaa soo maahan xoogaa meesha hadda waa dareemi kartiin inay mugdi tahay sidii hore aysan iftiin u ahayn insha Allah muuqaalkayga isagoo socda la jaajara gashanaa lisma dhibaayo makiinad si fiican ugu shiideynaa waxaa rabnaa inuu smooth noo noqdo dhammaan waxyaabaha oo taagtaaga dhan inaa baabi'inaa rabnaa insha Allah tacaala kuma qasbanid makiinadan bis inaa haysatid makiinada caadiga cabitaanka lagu shiida ku shubanaysaa makiinadaasaa ku shiidanaysaa bilaa wareer la-aan ma fahanteen insha Allah shurbadeena intaasa uga bixina hadartaan waxaan aadaynaa qaybtii malaaygi dabka waxaan soo saartay wax yar oo saliid ah meeshaan malaaya igu soo diyaarsanay oo cabaar waxyaabo space inta mariya fridge geliyay cabaar dhacaanka waxaa rabay waxyaabaha dhanaanka amar in oo gudaha u galo asxaabteeda malaayigiina hadda kusoo shubanaynaa waa kalluunka cad kalluun yumbi maal lahaa adiga ala xal waa malaayga cad insha Allah asaga haddana kusoo shubanaynaa asaga duubeynaa waa gaduudinaynaa kor iyo hoos markuu noo gaduuto kabacdi maxaa sugeynaa waa qaadanaynaa miiskeena ku diyaarsanaynaa insha Allah saliidana aad uma kululo asxaabteeda daqiiqada kadib malaaygu uu inoo soo gaduutay saarabna weli ma noqon weli waa gadgadinaynaa insha Allah tacaala inuu si fiican noogu gaduuto aan u baahanahay insha Allah waxaa waaye maanta waqtiga aad u igu yaraa ma fahanteen qaybtii hore waan ka bixiyay qayb labaad soo saaray maasha Allah asxaabteeda shaqo dheer kadib alxamdulillah ilaah waa inoo soo fududeeyay afurkiina waa inoo soo diyaar garoobay alxamdulillah adiga waa soo afurnay hadartaan waa casho dadka sambuuska iyo burka iyo waxasaas nocona manihin alxamdulillah waxay romale wax iyo timir ayaa la iskaga af bilowday waxaa waaye maanta dhanaa la sooman yahay sambuus iyo gaas waa walaalo ma fahanteen sambuus iyo gaas waa walaalo meel ma jira anagana gaaskana tuuma jabay ma fahanteen insha Allah tacaala anaga dadka sambuuska cuno manihin inta cunayso caafimaad qabta caafimaadkooda waxaan leeyahay Allah u siyaadiyo maasha Allah tabaaraka raxmaan shurbadiisaan inoogu soo baxda quruxda badan markii aan soo kariyay meeshaan cabitaan mushakal ahaan noogu diyaarsan maasha Allah shurbad horta aniga meeshaan waxa ugu haysta dhan waa shurbad hal baaqul ana iskala fahanteen malaagina waa kaasaa laba xabo oo kun soo kariyay qaraheeni maasha Allah casho fuul oo dhameystiran waxbaa ka dhiman isleediin mooska iyo liin dhanaantii iyaa ka dhiman asalaati iyo oolin maantay wixii aanan ii aalinna bariig uma qabanay hore ugu soconaa ma fahanteen maasha Allah intaana waxay tahaan fuul tamaam intaana waxay tahay waxaan laga sheekay karin maasha Allah asxaabteeda waa kaasaa cashadeena sidaan quruxda badan noogu soo diyaar garooday baastadii iyo suugada dhammaan ma duubin waxaaba waa ka gaari waaye maalinba inta laga gaaraa lasoo qabanaa maanta muhiimadeena waxay ahayd shurbada maasha Allah ayadana saanay diyaar noogu soo noqotay walahi lagama sheekay karo waxaa waaye caloosha ma aragtay way nadiifinay musqusha daris noqonaysa haddaa baratiin walahi iskama dii doontiin aniga ramadaan ayaan shurbadaas cabin maba ii jiraba ma fahanteen yaa ramadaan aan shurbadaas cabin baastada iyo bariiska iyo waxa la cunay cabitaanka Allah ka dhigay ayada iiga muhiimsan maasha Allah aad u jecelahay adinkana waxaan idin rajeynaa inaad ka faa'iidi doontiin
oo markaas wixii jikadaada yaal aad karsanaysid insha allahu tacaala. muuqaalka xiginta iskaga soo noqon doona. waxaan idinkaga tagaa sidaas iyo nabadgelyo. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. muuqaaladan hala sii sheer gareeyo waa inoo dhiirigelin insha allah.